gabar la qabo islaan la qabo ayaan ninkeedii ka furtay kadibna waan isku tagnay uur bay yeelatay kadib baan guursaday leeyahay ayadoo uurkii leh marka wuxuu leeyahay maxaan samayn karaa gabadhina waan qabaa hadda oo waan guursaday laakiin ayadoo uur leh ayaan guursaday uurkaasna isaga iska leh bimacnaa ninkii hore oo isqabaan ayuu uurkaas dhacay marka maxaan samayn karaa cunugiisa xaalkiisa muxuu noqon karaa soomaalida waxay yidhaahdaan gabadh baa waxaa laga waaninahayay naaxumaanta jooji ayadoo la waaninahay baa waxay tidhi ii dhaqsada waa lai fadhiyaa marka wixii caawo dhan laga hadlaya ayaaba hadda waxaa bilaabatay kowbet waa midii ugu foolxumayd waa ninkaasi runtii arrintiis waa culusta dulmi dhowr dhinaca buu ku jiraa ama uu galay faaxishadu markay zina keligeeda tahay qur-aanku waad aragteenoo aad buu u weynayey magaca ilaahay u bixiyeyna faaxisha loo bixiyey faaxisha waxaa la yidhaahdaa waa shayga foolxumada meesha ugu dambaysa ka gaadhay waa zinanimada waxaa dheer nin walaalkii ah oo muslim ah oo xaq ku leh bal xuquuq ku leh buu gogoshiisii wasakheeyey ayaduna waa jariimo weyn leanna way kala duwan tahay haweenay aan guri lahayn oo nin lahayn iyo mid nin le way kala duwan yihiin zinadii baa kala culus iyaduna culayskeeday leedahay mar kale culayskeeday leedahayoo inuu islaantii ka furtay ninkii ilaan hadda soomudhi waan qabaa soo ma macnaheedu waxa weeye ninkii hore qabay ayuu ka sasabtay oo ka furtay oo markuu bannaanka soo dhigayna wuu guursaday ayadana waa qodob kale oo guri inuu dumiyo oo ninka xaaskiisa kala hoos baxo iyadana waa jariimo weyn oo ka weyn xoolo layska dhaco qodobka kaleeta wax weeyaan uurkan uu ka hadlayo ee ninku intuu qabay yimid ilmahaasi alwaladu lilfiraash buu nabigu yidhi sal alla alay wasalam haweenayda ninka qaba ee xaaska u tahay gogasha u tahay inta uu xadhiggiisu ku xidhan yahay waxay dhasho isagaa iska leh allaahumma inayna ka suuroobi karin mooye sayna uga suuroobi karin maalan xilli aysan isaga u dhali karin bay kala maqnaayeen xilli ayna caadadiiyo curfiga haweenaydu aysan muddada uur lahaan karayn ayay ilmaha ku dhashay caad ahaan suurtagal maa markaasoo kale inay dhashay waa ilmo zina waay laakiin marba hadduu ka suuroobi karo alwaladu lilfiraash ilmaha waxaa iska leh ninkii islaanta qabay ee gogosha iska lahaa walilcaahiri alxajar buu nabi sal lla alay slm ninka zaaniga ee reerka soo dhex galayna asaga dhagax buu leeyahay asaga abaalkiisa waa in dhagax lala dhaco laakiin maanta dhagaxii ma hayno ninkaasi ilaahay toobadda waa aqbalaa laakiin dunuub waaweyn buu galay sida uga bixi karana ninkii walaalkiisa gogoshiisa uu fadareeyoo halleeyey siduu uga xalaashan karo idinka ma sawiran kartaan yaa xaq bini aadan waay gurigiisii buu ka qaatay gooshiisiina waa ka wasakheeyey intaad u tagto ma dhihi kartaa gogoshii baad yaan kaa wasakhay raalli ahow yaa cafi